maamulka Puntland ayaa ficil ahaan u hirgeliyay digniin muddo bil ka hor ka soo baxday taasoo ku aadanayd in gebi ahaanba la mamnuucay isku socodka ciidamadan hoos tagin maamulka Puntland inay isaga kala gudbaan deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka Puntland. waxaan kula wadaagi doonaa tallaabada maamulka Saciid Cabdullaahi Dani uu qaaday sidoo kale saameynta ay ku yeelan karta amniga iyo xasiloonida mandiqada dowlad goboleedka Puntland. soo dhaw marka hore muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibo hadii aad hore noola joogto ku maasantahay hadii aad nala joogina nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran. wahgaaga maamulka Puntland ayaa maalinimadii shalay ahayd waxa uu qaaday tallaabo si cad markaasi ugu dhaqan gelinayo degniin muddo bil ka hor ka soo baxday taasoo ku aadanayd in gebi ahaanba la mamnuucay isku socodka ciidanka aan sida tooska ugu hoos tagin dowlad goboleedka Puntland isaga kala gudbaya deegaanada iyo degmooyinka maamulkaasi. tallaabadii ugu horeysay ayaa shalay waxaa laga qaaday ciidamada sida gaarka u tababaran ee BSF kuwaas oo muddo dheer iyagu markaasi si toos ah u hoos tagayay dowladda Puntland. laakiin muddo xileedkii ugu horeeyay Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa isku dhacay khilaaf xooggan oo soo kala dhaxgalay ciidanka BSF iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani taasoo keentay in ciidankan si cad ay uga hor yimaadaan awaamiirta hogaamiye Saciid Cabdullaahi Dani. haddaba shalay waxaa tallaabo cad qaaday ciidanka ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland gaar ahaan ciidamo dhawaan la geeyay deegaanka Ligle oo 30 kiiloomitir u jira magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. tallaabada ayaa laga qaaday ciidanka BSF oo safar u ahaa magaalada Qarbo isla markaana ka baxay degmada Boosaaso. ku dhawaad 9 tikniko ay wateen ciidanka BSF kana baxay Boosaaso kuna wajahnaa Qarbo ayaa waxaa hor istaagay ciidankii ku sugnaa bar control oo laga soo gala loogana baxo magaalada Boosaaso kuwaas oo ku amray ciidanka BSF inay dib ugu laabtaan gudaha magaalada. laakiin ciidanka ayaa ka dhaga adeegay BSF waxaana taasi ay sababtay in halkaasi uu ka dhaco israsaasayntii ayaa isku bedeshay dagaal ballaaran oo si toos ah u dhaxmarayay ciidanka BSF. Saciid Cabdullaahi Dani ayaana amray in tallaabo adag laga qaado ciidanka isla markaana si adag loola dagaalamo. Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ciidamo aad u fara badan iyo saraakiil ka diray magaalooyinka Garowe, Qardho iyo sidoo kale Gaalkacyo kuwaas oo gaaray xalay duleedka Boosaaso waxaana saaka subaxnimadii hore ay soo afjireen ciidankii BSF ee difaaca kaga jiray deegaanka Ligle iyo Boosaaso inta u dhaxayso. haddaba markii la soo afjiray ciidanka waxaa durba soo baxay guux ku aadan halka la geyn doono iyo sidoo kale meesha uu ku dambeyn doono hubkii sidoo kale tiknikadii laga qabsaday ciidanka BSF iyo sidoo kale maxaabiista ay ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland ilaa hadda ka soo qabanaya buraha u dhaxeeya Boosaaso iyo sidoo kale Ligle. dadka deegaanka waxay xaqiijinayaan in hubkan maamulka Saciid Dani uu dib ugu wareejin doono ciidanka BSF isaga oo marsiinaya odayaal dhaqan oo haddaba ku jira dhexdhexaadin ku aadan sidii hoos loogu dhigi lahaa xiisadda ciidanka BSF. Dani ayaa horey ugu hanjabay inaysan marnaba Puntland qaadi karin ciidamo aan ahayn kuwa ammaanka ee maamulkaasi u diiwaan gashan cid kasta oo sheegata federaalkana tallaabo adag laga qaadi doono. haddaba Puntland waxay u muuqataa inay garayso marxalad kale oo aan markaasi la saadaalin karin halka ay ku dambeyn doonto. dagaalkanna waxa uu barbilow u yahay khilaaf markaasi suuragal ka dhigaya in Puntland dhinacyo kala duwan mar kale dagaal toos ah u dhaxmaro.